madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa soo dhaweeyay heshiiska Sister City ee ay wada gaareen magaalooyinka Harar ee Itoobiya iyo Carta ee Jabuuti. labada magaalo ee taariikhiga ayaa waxay ku heshiiyeen isbuucii hore in la wanaajiyo xiriirka Sister City magaalooyinka hablaha isla dhashay loo yaqaano. madaxweyne Geele wuxuu aad u bogaadiyay heshiiska intii uu socday wada hadalka uu kula qaatay Jabuuti wafdi ka socda Itoobiya oo uu hogaaminayo Ordin Bedri madaxa maamulka gobolka Harar. wuxuu sheegay in heshiiska lala galay magaalada taariikhiga ee Harar oo ah goob UNESCO ay ka diiwaan gashan tahay ay wax badan ku soo kordhin doonto shaqooyinka cilmi baarista. wuxuu intaas raaciyay in heshiiskani uu gacan ka geysan doono hagaajinta nolosha dadka labada dal iyada oo loo adeegsanayo wax kasta oo suurtagal ah iyo khibradaha jira. Ordin Bedri ayaa dhinaciisa ku casuumay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu booqdo magaalada taariikhiga ee Harar. labada magaalo ayaa ku heshiiyay inay sii kordhiyaan xiriirkooda inta lagu guda jiray booqashada Ordin ee magaalada Carta usbuucii hore. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka Itoobiya Dameke ayaa mar kale cadeeyay sida ay Itoobiya uga go'an tahay nabadda Afrika iyo isdhexgalka dhaqaalaha qaaradda. hadalkan ayuu ka jeediyay kulankii dood wadaaga ee shirka dhaqaalaha adduunka oo halkudhigiisu yahay dhismaha nabadda ee Afrika. Itoobiya waxay sii wadi doontaa dadaalkeeda ku aadan dhisidda nabad waarta iyo kor u qaadista isdhexgalka dhaqaalaha qaaradda ayuu yiri kulankaas oo ay ka qayb galeen hogaamiyaasha Afrika. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka ayaa sheegay in dadaalka Itoobiya ee ku aadan nabadgelinta iyo isdhexgalka dhaqaale ee gobolka Geeska Afrika ay ka dhasheen natiijooyin rajo wanaagsan leh. wuxuu intaas raaciyay in wadanku ay ka go'an tahay inuu wax ka qabto caqabadaha horyaalla isbedelada socda iyo in la dhiso nabad waarta. xisbiga BB ayaa bilaabay inuu siiyo tababaro mas'uuliyiinta ugu sareysa hogaaminta xisbigaasi. Meles Alemu oo ah ku-xigeenka madaxa xafiiska ee xisbiga ayaa sheegay in tababarka lagu qabtay magaalada Adama uu socon doono ilaa 10 Febraayo 2020. Ra'iisul Wasaare Dr. Abiy Ahmed ayaa ka qayb galay furitaanka tababarka. tababarka ayaa looga leeyahay in lagu muujiyo midnimada hoggaanka iyo hoggaan wanaagsan lana aqoonsado caqabadaha horyaalla iyo qeexitaanka jihada mustaqbalka ayuu yiri. hoggaanka ayaa dib u eegi doona guulaha la gaaray tallaabooyinka la qaaday kadib soo bandhigidii barnaamijyada dib u habeynta ayuu Meles raaciyay. waxaa sidoo kale loogu talagalay ayuu yiri in lagu dhiso awoodda hoggaanka si loogu ogolaado inay ka jawaabaan baahida dadka ee isbedelka. in ka badan 2,000 oo hoggaanka sare xisbiga ayaa ka qayb qaadanaya tababarka 17 maalmood socon doona.